manta ومالي وين manta 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 مدحين بنالي manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بنالي manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بنالي manta 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 ومحد إلهي manta 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 تدكي مدوي manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بنالي manta 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 ومالي وين manta 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 مدحين بنالي manta waxa weli lagu gudu jiraa toddobaadkii xuriyadda inta badan dadka Soomaalida waxa ay wada garanayaan in gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay xuriyadooda gumaysi Britain ka qaateen 26kii bisha Juun ee 1960kii iyo in kowda Luulyo ee isla sanadkaas ay goboladii koonfureed ka xurubeen Talyaaniga isla maalintaana ay midoobeen gobolada waqooyi ee koonfurta maanta oo kale ee bisha kowda Luulyo ay tahay ayna ku aadan tahay guud ahaan geega Soomaaliya ayaa loogu dabaaldegayaa haba ugu sii hadarnaatay caasimadda ee Muqdisho laakiin waxa jira waxyaabo aysan dadka intooda badan ogeyn taariikhda ku geedaaman halgankii xornimo doonka iyo marxaladii la soo maray xilligii gumaysiga tusaale ahaan aad bay u yar yihiin dadka xusuusta in maalinta taariikhda Soomaaliya baalka dahabka ka gashay kowda Luulyo 1960 ahayd maalin Jimcaha waxa xilligaasi ka dambeeyay maalin Jimcaha iyo kooda bisha Luulyo waxay isku soo aadeen sanadihii 1966 77 83 88 94 2005 2011 iyo 2016 oo ahayd markii ugu dambeysay ay isku soo beegmaan marka xigta ay kowda Luulyo ay Jimco ku soo aadi doontana waxa la rajeenayaa inay noqoto 2022 Soomaaliya waxay madax banaanida kaga horeysay inta badan dalal kale ee bariga Afrika wadamada xubnaha ka urur goboleedka IGAD ee kala Kenya Uganda Djibouti Eritrea iyo Sudan waxay dhamaantood go'aanimadooda heleen Soomaaliya oo ah dal madax banaan xornimadii kadib Soomaaliya waxay rajo fiican u noqotay guud ahaan dalalka qaaradda Afrika maadaama ay ku guuleysatay inay fuliso 3 doorasho dimuqraadiya kuwa oo dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1959 ilaa 1960 taasi waxay Soomaaliya ka dhigtay wadankii ugu horeeyay Afrika ka tirsan oo ay si nabad ah maamulka dawladdu isu wareejiyaan laba madaxweyne rayida aqoonyahan Maxamed Cawaale Liibaan ayaa calanka Soomaaliya naqshadiisa hindisay naqshada calanka buluuga ee xidigta cad ee shanta geesoodka dhexda uga taal wax markii ugu horeysay la soo bandhigay 1952 sida uu sheegay mid kamid ah abwaanada Soomaaliyeed xiligaasi kadib wuxuu calanka soo maray marxalado kala duwan ilaa ugu dambeyn si xor ah uga babado carada Soomaaliya 12 Oktoobar 1952 ayaa la hindisay calanka labadii sano ee xigtay dood ku saabsan baa ka jirtay qaramada midoobay balse 1954 markii Cabdullaahi Ciise uu tagay qaramada midoobay ayaa la ogolaaday isla sanadka ayaa la arkay isaga oo suran afisho governo dhismaha xarunta dawladda hoose ee Xamar wuxuu markaas isaga oo suran u dhaxeeyay calankii qaramada midoobay iyo kii Talyaaniga balse uu ka gaaba geeyiga Soomaaliya ayaa si joogto ah looga xusaa maalmaha xuriyadda waana taariikh soo jireen guud ahaan meel walba Soomaali weyn ay joogtana waxaanu leenahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato